السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kugu xujeysanaya in ay sheegtid saxaabigii dartii nabiga loo canaantay. saxaabigii Jibriil dartiis uu soo degay si nabiga qalbigiisa uu u galiyo 16 aayadood oo ilaa qiyaam saal akhrindo. Buliba aan kugu daray 16 kaas aayadood waxay ku jiraan hal suurad oo kaliya. saxaabigan wuxuu ahaa muadinka nabiga sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale nabigu wuxuu la ahaa qaraabo oo waxa dhalay Khadiija bint Khuwaylid aftigeed. waxaan rajeynaa in aad garateen saxaabiga maanta ka hadleen. waxaan ka hadlaynaa Cabdullah ibn Maktum. hooyadiis waxaa la jiray Maktum waxaana loogu bixiyay wuxuu ku dhashay indha la'aan. taasoo loogu bixiyay markuu Maktum. Cabdullah ibn Maktum wuxuu ahaa qof aad u jecel diinta in uu barto oo aad u barto. marka qaarna waxaa la wuxuu qaadan jiray waqtigiisa iyo waqti ka badan maanta wuxuu nabiga su'aal weydiin jiray. marka maalmaha kamid ah waxaa dhacday in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u imaado nabiga asagoo u sharxayo diinta Abu Jahl, Utbah, sidoo kale وليد بن مدحي قريش. النبي صلى الله عليه وسلم مر walba wuxuu jeclaa in madaxda ay qaato islaamka sababtoo ah mar walba madaxda waxa daba socdo dad fara badan qof oo madaxda soo islaamaan dad soo marka mar walba wuxuu jeclaa nabiga in dadkan dhibka diinta ka daayaan oo diinta ay qaataan marka uu yimid uu soo qeylay maadaama uu arkay wuxuu yiri rasuul ilaahay ibar wuxuu ilaahay ku baray ibar markuu ilaahay wuxuu ku baray yiri nabi sallallahu alayhi wasallam marka uu ka jeestay nabigu iska tagay aayadaha markay soo degeen لحية توانك آيات مكي سود دقين عبس وتولى أن جاء الأعمى مكي سود دقين أنا كسوحي كده بين آياتها قراءة سود دقين عبد الله بن مكتوب نبي قلت وسمي منزلة قال وحلو جري وأنا كي درت سلي عناتي نبي صلى الله عليه وسلم فوسم يستي لو مؤذن كوادنا وحوها بلال بن الرواحية عبد الله بن مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم سوى ناس مؤشر جري مرة بدن حتى مدينة مكو النبي صلى الله عليه وسلم كتجاي وحو سمين جري وحو خليفة أقول جري نيكي والله عبد الله بن مكتوب صحابي قاس أقول جري الله كرر على قدمات مركزة حتى مركي كواد أو مصعب بن عمر لو دراي إن أو ذاتك قرآن صابر ذاتك مدينة قرآن صابر قف كل الراعي إن قرآن كلا صابر وحوها عبد الله بن مكتوب dagaalkii badar markay soo noqdo kadib waxa soo degtay waxa ka sheekeynaa Zayd bin Thabit xuleeyahay in maalmaha kamid aniga qoray waxay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam jooga waxa nabiga wuxuu u yeernay aayad marka waxay marka laayast aayad waxa lagu boorinayay dadkii dagaalkii badar ka imaaday ee mujaahidiinta markaas aayad waxay ahayd marka hore la yastawi alqaa'iduuna min almu'miniina walmujaahiduuna fi sabiilillah marka saas ahayd masina kuwa mu'miniinta ay fadhiistay iyo kuwa jihaaday markaas Abdullah bin Maktum wuxuu ilaahay soo dejiyo cudurdaarkayga hadana nabiga uu imaado wuxuu ku rahay nabi Allah ka warna qofka aan awoodin inuu jihaado oo awood dare ay ka reebto oo aan iska fadhiisan mani waxay u aamusay hadana waxa soo degtay aayad waxa lagu soo daray khayra ulil darari marka wuxuu ahaa saxaayid jaliil waxyaalaha qisooyinkiisa marka aad dhageysanaysa aad kala yaabayso waxa kamid ah 16 kaas aayado ku soo degtay aayadan sidoo kale waxa lagu soo cudurdaarkiisa loo cadeeyay oo asagan inuu dadka jihaadka ajirkiisa aan laga yeerin loo cadeeyay waxyaalaha cajiibka ah oo aad qisooyinkiisa kala kulmaysa qisas marka akhriisa kala kulmaysa waxa kamid ah wuxuu dhigi jiray taas asagoo ah oo loo cudurdaaray wuxuu dhigi jiray aniga meesha jihaadka haligeeyo jihaadka marka la geenay waxa leeyahay waxaan fadhiisanayaa cadowga gaalada iyo muslimiinta meesha u dhaxaysa markaas waxaan qaadanayaa calanka islaamka qaadanaya halkaas fadhiisanaya maadaama aanay caaradi karin dadka asxaabtana markaas waxay ku qasban yihiin inay dagaalama ila raayadii meesha kala loo nasbiso carari karaan maya markii ugu dambeysana waxa lagu dilay dagaal uu cilaamiyay Umar bin Khattab ee la galay dawladda weyneed ee Farisiinta 3 maalin buu dagaalka socday